maxkamadda sare ciidamada qalabka sida racfaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida maantay way ku dhawaaqaysaa xukunkii racfaanka haddii alla idmo maxkamadduna waa inoo furan tahay maxamed cabdi raage cabdulqaadir axmed buraale qofka aan yeeray gacanta kor u taaga si fiican u taaga محمد حاشي مؤمن عبد القادر أحمد أمل محمد أحمد علي قاسم عبد القادر جيلان محمد عبد الله أيانله فيصل أحمد بشير سهل عبد الله محمد جامع إدريس محمد أفياري سلمان محمد سليبان جامع مريدي محمد علي كلاي نجاية معو صبري محمد محمود أحمد علي إبراهيم نور محمد عبد الله أبكو محمد عمر مودي أوكي ساسي كده يسدد يتوانكي حكومانه وحانا إنو آخر الدونة محكمة حكم كذا إن شاء الله عشان لا دحى كان الدين أبسط بسم الله الرحمن الرحيم مجلس جمهورية فدرالك الصومالية دولة بنتلاند الصوماليات محكمة سرع ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland gaalkacyo maalinimo Isniin ah taariikhduna tahay 14 bisha 2021 maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha 2021 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus iyadoo fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo kaaliyaha maxkamadda una ka soo qayb galay xafiiska xeer ilaalinta guud ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus qareena ay ka yihiin qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud iyo qareen Ismaaciil Xalane iyo qareen Maxamed Cabdi Warsame maxkamaddu waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku araf caanlayaasha kala ah kow Maxamed Xaashi Muumin Sabriye أبو ضيبي هنا فاطمة نور كنتني لبشرة عبد القادر أحمد أم الورسمة أبو عبد الله هنا مريم محمد صدشرة محمد أحمد علي عوكة كما عدير شيري هنا فاطمة محمد صدني الحشرة قاسم عبد القادر جيلاني حسين كما عدير الترابي هنا أبو محمد صدشرة شن محمد عبد الله عياله كما عدير أبيله هنا عاشا علي جال صدن الشنشرة كنا أيديسن حير لمبرتين قدب كيس اللباد فقرد دي سكوات دبناها waxaa ka ah marxuumiinta la dilay ee kala ah sida soo socdo sidaan hoos ku qoran magacyadooda marxuun Xasan Axmed Cali Xasayare marxuun Maxamuud Sheekh Cusmaan marxuun Axmed Cilmi Cusmaan marxuun Axmed Muuse Nuur gudoomiye hore gobolka Mudug مرحوم محمد موسى نور مرحوم اكس قاشان لسره حوريه مرحوم اكس قاشان لسره عبد الغني احمد قاره مرحوم شيخ اسماعيل حاشي مدحي دينته iyo awqaafta مرحوم سعيد علي يوسف قاضير مرحوم اكس حلبان علي فارح بوطان
علي جاس مرحوم عبد حسن قبة مرحوم فارح علي حاد مرحوم أكس حدقلة علي إبراهيم علي مقفة أفر طبعا مرحوم عبد السلام حسن حرسي كما على الججر قدومية هو الجولك نقال maxkamadda markay aragtay warqadda rafcaan qaadashada ka soo baxday xafiiska qareennada nuxurkeeduna ahaa rafcaan qaadasho xukun sumadiisu tahay maada ka isbaara aqa sa isbaara daca isbaara ga isbaara mudug iyo cayn isbaaro eber hal eber jeetin 22 isbaaro 22 kuna taariikh isnad 22 bishii afraad 2021 si waafaqsan qodobka 209 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay aragtay qiraalka eedeysanayaasha ay ka sameeyeen garsoore hortiisa sida ku cad qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay aragtay jawaabta iyo eedda xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda markay u cadaatay in xukuumanayaasha dhammaantood ka tirsan yihiin ururka argagixisada al-shabaab maxkamaddu markay ku qanacday cadeemaha maqal iyo muuqaal ee xafiiska xeer ilaalintu soo bandhigtay maxkamaddu markay daalacatay kutubaha shariicada islaamka suuradaha iyo aayadaha quraanka kariimka go'aan xukun maxkamadeed shoor maxkamadeed kadib maxkamaddu sare rafcaanka ciidamada qalabka sida dambiyada culus dawladda Puntland markay u cadaatay in dambi dhacay kuwa galan ay yihiin rafcaanlayaasha kala ah Maxamed Cali Kalaay ina Faadumo Maxamed Umar 40 jir ku dhashay gobolka Shabeellaha Hoose magaalada Shalambood degan Gaalkacyo xaafadda Garsoor shoor maxkamadeed kadib maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus waxa uu cadaatay inuu dambi dhacay kuwa galan ay yihiin rafcaanlayaasha kala ah محمد حاشي مؤمن صبرية محمد حاشي مؤمن صبرية عبد القادر أحمد الورسمة محمد أحمد علي عوكة أفر قاسم عبد القادر جيلاني حسين شن محمد عبد الله أيانلي maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus dawladda Puntland waxay ayaday xukunkii hore maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gobolada mudug iyo cayn kaasoo nuxurkiisu ahaa dul toogasho xukuumanayaasha sare ku xusan maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha 6 2021 maxkamadda waxay u fariisatay maxkamad sare ciidamada qalabka sida dambiyada culus dawladda Puntland waxay u fariistay iyadoo fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo isla markaana uu kaalinayo kaaliyaha maxkamadda sare una ka soo qayb galay xafiiska xeer ilaalinta guud ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus dawladda Puntland qareena ay ka yihiin qareen Buqaari Maxamuud Maxamed qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud maxkamadda waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku ah xukuumanayaasha rafcaanlayaasha kala ah محمد عبد راجع إندبور إنا قيرو عبد الله شورية كنتن يشنجرع كل شيء اسمايو دجن قال كعيو لبا عبد القادر أحمد برالي موسى إنا رقي حسن شراء صدني لبتشرع كل شيء تبغى هو دجن قال كعيو محمد عمر مودي إنا فاطمة أبو بكر محمد أفرتني كوتشرع كل شيء مركا دجن قال كعيو شغلي سنة هاي كوان له maxkamadda markay aragtay xaashada rafcaan qaadashada qareen Buqaari ee la qoray 24 bisha afraad 2021 maxkamadda markay aragtay warqadda rafcaan qaadashada qareen Muxudiin kuna taariikhaysan 9 bisha shanaad 2021 maxkamadda markay aragtay eedda xeer ilaalinta iyo jawaab celinta maxkamadda markay dhageystay dulucda dacwadda isla markaana qiimeysay
dooda dhinacyada maxkamaddu markay akhristay dhammaan qoraalada galdacwadeedka ku jira maxkamaddu markay akhrisatay qiraalka eedeysanayaasha ka hor sameeyeen garsoore hortiisa si waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay u cadaatay in xukuumanayaasha dhammaantood ka tirsan yihiin ururka argagixisada al-shabaab maxkamaddu markay aragtay cadeymaha muuqaal daawasho ee xafiiska xeer ilaalintu soo bandhigtay go'aan xukun maxkamadeed showr maxkamadeed kadib maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland waxay jabisay xukunkii hore maxkamadda darajada koowaad sumadiisa ahayd maada ka isbaaro aaqa sa isbaaro daca isbaaro ga isbaaro mudug yaaceen isbaaro eber hal eber jeetan 22 isbaaro 22 ee la qoray 22kii bishii afraad 2021 nuxurkeeduna ahaa dil toogasho labo maxkamaddu waxay ku xukuntay rafcaanlayaasha kala ah Maxamed Cabdi Raage Cilmi Indhabuur ina Khayr Cabdullaahi Shuuriye 55 jir ah ku dhashay Kismaayo degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna tahay dhismaha guryaha labo Maxamed Cumar Muude ina Faadimo Abuukar Maxamed 41 jir ah ku dhashay marka degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay kawaanle midkiiba dil toogasho ah saddex maxkamadda markay u cadaatay qodobka labaad faqradiisa labaad xeerka lowlan barteen inuu ka mid yahay ururka argagixisada al-shabaab sida ku cad qiraalka garsoore hortiisa oo waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku xukuntay Cabdirasaaq Axmed Buraale Muuse ila Ruqiyo Xasan Shire 32 jir ah ku dhashay Jubbada Hoose degan gaalkacyo xarig xabsi daayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo kaaliyaha maxkamadda uu goobjooga ka yahay xafiiska xeer ilaalinta guud ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland ayna qareeno ka yihiin una qareen ka yahay waa hal qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud maxkamaddu waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku ah rafcaanlayaasha kala ah Faysal Axmed Bashiir Gujis inamaka Sheekh Suufi 31 jir ah ku dhashay degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay Faryaamo labo Sahal Cabdullaahi Jaamac ina Boosteeye Maxamed Weheliye 32 jir ah ku dhashay Laanmadow degan gaalkacyo saddex Idris Maxamed Afyare ina Dahabo Maxamed Ibraahim 25 jir ah ku dhashay Muqdisho degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay dukaanle afar Salmaan Maxamuud Saleebaan Cabdulqaadir Alfarisi ina Sakarey Aadan Xasan 26 jir ah ku dhashay Baydhabo degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay foorno rootila shan Jaamac Muriid Xuseen Maxamed ina Batuul Axmed Maxamed 20 jir ah ku dhashay Boola Mareer degan gaalkacyo shaqadiisuna tahay bajaajle kuna eedeysan xeer lambartan qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad waxaa dhibanaha koowaad ka ah marxuumiinta kala ah marxuun Xasan Yare marxuun Mukhtaar Jifa Jabsade marxuun Qalay Yuusuf Jile marxuumad Dhudi Yuusuf Jile marxuum Rooble oo Caarif Rooble Agoon مرحوم عبد القادر جامع نقال مرحوم ياسين علي بري مرحوم عبد القادر مرحوم سعيد لقود إيوه استافكيسا طبعا مرحوم محمود فري كوية طبعا مرحوم عبد الله فري إيوه والالكيس قدودو لبية طبعا مرحوم بشير عبد القرس صدحية طبعا مرحوم حسن ويني أفرية طبعا مرحوم موسى عرطن شنية طبعا مرحوم ورية سيلفر لحية طبعا مرحوم عمر داري تضبية مرحوم اكس كورنيل احمد محمد دغوينه سيدادية طبعا بشير طبطبات اكس اقاسمه سيالية مرحوم بابو الكبير اكس انجينير غنبي 20 مرحوم اكس ورية فرحان جيمس عبد الله maxkamadda markay aragtay
maxkamadda markay dhageysatay eedda xeer ilaalinta iyo jawaab celinta qareennada eedeysanayaasha rafcaanlayaasha qareennada eedda xafiiska xeer ilaalinta iyo jawaab celinta qareennada rafcaanlayaasha maxkamaddu markay aragtay dulucda dacwadda isla markaana qiimeysay dhinacyada doodooda maxkamadda markay akhristay dhammaan qoraalada galka ku jira maxkamadda markay aragtay qiraalka eedeysanayaasha ay ka hor sameeyeen garsoore hortiisa sidoo ka cad qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay u cadaatay in xukuumanayaasha dhammaantood ka tirsan yihiin ururka argagixisada al-shabaab maxkamaddu markay aragtay cadeemaha muuqaal daawasho ee soo bandhigay xafiiska xeer ilaalinta xukun maxkamadda sare rafcaanka ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland markay u cadaatay in dambi dhacay kuwa galan ay yihiin rafcaanlayaasha xukuumanayaasha kala ah Faisal Ahmed Bashir Sahal Abdullahi Maxamed Jaamac Idris Maxamed Afyare Salman Maxamuud Saleebaan Jaamac Muriid Xuseen Ahmed maxkamadda sare rafcaanka ciidamada qalabka sida waxay ayaday kuna raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad simadiisu ahaa maada ka isbaar aqka isbaar daca isbaar ga isbaar mudug iyo ceen isbaar eberhal jeetin 22 isbaar 22 nuxurkeeduna ahaa dil toogasho waxay maxkamaddu cuskatay low lambarteen qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii 2021 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus dowladda Puntland iyadoo fadhigeedu u dhayahay kana kooban garsoorka maxkamadda sare iyo kaaliyaha uuna ka soo qayb galay xafiiska xeer ilaalinta guud goobjoogana ka yihiin qareennada kala qareen Muxudiin Cabdulqaadir Maxamuud qareen Cabdusalaam Ibraahim Axmed iyo qareen Aadan Maxamed Faarax maxkamadda waxay go'aan ka soo saartay dhageysiga garmaqal dacwad ciqaabeed lid ku ah rafcaanlayaasha kala Maxamed Cali Kalay ina Faadimo Maxamed Cumar 40 jir ah ku dhashay gobolka Shabeellaha Hoose magaalada Shalambood degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna ahayd Kawaanle 2 Nageeye Muuse Macu Sabar Nageeye Qanji 38 jir ah ina Faadimo Muqtaar ku dhashay xamar degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna tahay Kawaanle 3 Maxamed Maxamuud Axmed Cumar Laaga 34 jir ah ina Raaliya Abu Cumar ku dhashay Jowhar degan Faanoole kana shaqaysta gaalkacyo shaqadiisuna tahay Kawaanle 4 Cali Ibraahim Nuur Shucayb Cali Jareer 35 jir ah ina Faadimo Aadan Xasan ku dhashay Afgooye degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna tahay Kawaanle 5 Maxamed Cabdullaahi Abkow Cali 37 jir ah ina Siteemayo ku dhashay Mareerey degan gaalkacyo xaafadda Garsoor shaqadiisuna tahay Faryaamo kuna eedeysan xeer lambarteen qodobkiisa labaad faqradiisa koowaad waxaa dhibanaha koowaad ka ah marxuumiinta hoos ku qoran marxuun Ceenaanshe Mire Maxamed 2 marxuun X Nabadoon Nuur Xirsi Nuurwaal 3 marxuun Cabdiraxmaan Nuur Guray Geesdir 4 marxuun Cabdullaahi marxuum Nuur Yuusuf Gubeed 5 marxuum Cabdi Axmed Cabdi Dheere 6 marxuum Axmed Maxamed Jaamac Axmed Yare 7 marxuum Faisal Cabdulqaadir 8 marxuum Cabdiraxmaan Nuur Guray Geesdir 2 jeer buu soo laabtay marxuum 9 marxuum Muuse Aadan Xasan 10 marxuum Maxamuud Aadan Dalab 11 marxuum Cabdullaahi Cismaan Sheekh 12 marxuum X Xidigle Maxamed Faarax Muuse 13 marxuum Aadan Yooke
maxkamaddu markay aragtay warqadda rafcaan qaadashada ka soo baxday xafiiska qareennada nuxurkeeduna ahaa rafcaan qaadasho xukun sumadiisu tahay maada ka isbaaro acqa sa isbaaro daca isbaaro ga isbaaro mudug iyo ceen isbaaro ebrahal 33 isbaaro 22 isbaaro 2021 kuna taariikhaysan 12-ka bishii shanaad 2021 kana soo baxday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida mudug iyo ceen maxkamadda markay aragtay eedda xafiiska xeer ilaalinta iyo jawaab celinta qareennada maxkamadda markay aragtay qaraalada eedeysanayaasha ay ka horbixiyeen garsoore hortiisa si waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda markay u cadaatay in xukumayaasha dhammaantood ka tirsan yihiin ururka al-shabaab maxkamadda markay ku qanacday cadeymaha uu soo bandhigay xafiiska xeer ilaalinta شهر محكمة كذب محكمة سرع عندما قلب كسيدة مركو عداتي إن دم بدعي كوبا قلنا رفعان لياشا حكومة ياشا كلا محمد علي كلاي نجايم موسى معو محمود أحمد عمر علي إبراهيم نور شعيب علي جرير محمد عبد الله أبكو علي محكمة سرع وحي أيدي كنا راعي حكم كهراء محكمة درجة كوات سمدي سطحي ما أدى كإسبار أعقى سا إسبار دعاء إسبار جاء إسبار مدق عن إسبار إبر حل صدني صدح جيتن كوي لباطن إسبار لباطن لاتن يكو إلى قري لبي يتبنكي بشي شناد لباطن يكو نحر كذنها دلتو غشاء محكمة وحي عسكتي حير لمبرتين قدب كي سلوات فقرد سكوات iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq maxkamadda waa xirantay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi